shirkii gogasha wada tashiga ee uu furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 16 bishan oo muddo 4 maalmood ay ka socdo hotel ku yaala airportka gudihiis ayaa la soo gabagabeeyay goordhow 5 qodob ayaa ugu muhiimsanaa warmurtiyeedkii laga soo saaray. shantaas qodob ayaa waxay kala yihiin kow waxa ay dhinacyadu soo saareen dadkii halkaas ku shirsanaa goobjoogna ahayeen madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka ku xigeenkiisa xubno wasiir ah iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Dr. Xasan Maxamed Xuseen Mugaab iyo mas'uuliyiin kaleba shan qodob ayay ku heshiyeen. qodobka ugu muhiimsan ugu hore waxa weeye inay isla qaateen in aan dib loogu laabanin doorasho dadban nooc kasta oo ay ahaato. dhammaan dadkii shirkaasi ka qayb galay ee ama siyaasiyiinta lahaa ama xisbiyada lahaa oo qaar ku Puntland ay ka yimaadeen iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee lagu marti qaaday iyo siyaasiyiintii waxay isku raaceen in aan dib loogu laabanin doorasho dadban nooc kasta oo ay ahaato oo kaliya la aado doorasho toos ah iyo in si degdeg ah loo qabto doorashooyinka dawladaha hoose tan maamul goboleedyada lagu xijiyo kadibna doorashadii federaalka ee baarlamaanka iyo madaxtooyada la aado. qodobka labaad ee ugu muhiimsan waxay isku raaceen in dhammaan shirarka Soomaaliya ee dib u heshiisiinta iyo wada tashiyada ee ama Muqdisho ka dhacaya ama meel kale ka dhacaya oo xataa Soomaaliland iyo dawladda federaalka u dhaxeeya inay noqdaan kuwa Soomaali go'aankeeda ay leeyihiin Soomaali ay ka tashatay beesha caalamkana ay faraha kala baxdo wax kasta oo faragelin ah oo ay ku hayso Soomaaliya. qodobka saddexaad ee muhiimka ah waxa la yiri ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee ka dagaalamay koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya iyo deegaanada Puntland ayaa loogu hambaliyay guulaha ay gaareen waxaana la isku raacay in la galo dagaal kale oo saf ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka qayb galayaan taladiisana dhaxda la dhigi doono Al-Shabaabna looga adkaanay. qodobka afaraad ee muhiimka ah gogashan waxa la sheegay inay sii furnaan doonto oo aysan xirmin ilaa haddana wada tashiyada ay sii socon doonaan dhinacyo kalena la qaabili doono madaxda mucaaradka ay ku jiraan siyaasiyiinta kale ee iyo guudaan bulshada Soomaaliyeed ee ama cudurdaar ugu maqnaa ama aanan imaanin oo tabashoon ugu maqnaa in shirkan uu ahaado mid lagu sii lafagurayo xaaladda dalka Soomaaliya laguna ilaalinayo midnimada iyo wadajirka. qodobka shanaad ee qodobada ugu muhiimsan kamid ah ee shirkaas laga soo saaray waxa weeye in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka waxaana dadka Soomaaliyeed loogu baaqay inay dawladnimadooda adeecaan ilaaliyaan lagana shaqeeyo sidii bulshada la isugu keeni lahaa wax kasta oo tafaraaruq ah na meesha laga saaro oo ay qayb ka tahay in khilaafyada siyaasiga ah ee madaxda Soomaaliyeed u dhaxeeyo inay saameyn ku yeelanin gargaarka iyo horumarinta si loo kabo deegaanada dhulka Soomaaliya oo ay dawladda mashaariic u gaarsiiso. qodobaas ayaa ugu muhiimsanaa shirka goor ay soo dhamaaday sidaan hore u sheegnayna bulshada rayidka xubnaha matalaya ka socday madax banaani ayaa jirto sida halkaasi war-saxaafadeedka lagu sheego oo dad kala duwan ay sheegeen oo ah in madaxda Soomaaliya la rabo la weydiinayay sidii la rabana looga hadlayay leefna warbaahinta loo tubinayay oo dadka qaar baad arkaysa in madaxdu ay dhaliilayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ka qayb galay. sidoo kale waxaa goobjoogaha siyaasiyiin madax hore xisbiyo oo qaar ku Puntland ka socday madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan xubnaha kale ee dawladda iyo maamulka gobolka Banaadir. aragtidaada see u aragtaa qodobada ka soo baxay shirkaas oo qaarkood cimri dheerays u sii ah maamul goboleedyada sababtoo ah waxaa jira maamul goboleedyo fashilmay oo ay dad badan ku talinayaan in doorasho degdeg ah ka dhacdo si kasta oo ay muddo dheeraad u helaan haddana waxaa jira kuwa duruufo adag ka jira sida Hirshabeelle oo kale oo ay dadku aad ugu dhiban yihiin una dalbanayaan in ay dhacdo doorashooyinka degdeg ah si halkaas ama madaxda joogto soo laabtaan ama kuwa kale loo doorto. aragtidaada qaybta sifaalada Noorab muuqaalkana si shargareysay oo aragtaa qodobada muhiimka ah ee ka soo baxay si gaar ah qodobka quseeya beesha caalamka iyo kan doorashada.